xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasna lagu soo dhaweynayay madaxda jaamacadda bariga Afrika ee ku taala dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Boosaaso iyo sidoo kale Garowe waxaana soo qaban qaabisay jaaliyadda Somali Community ee Finland iyadoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Finland haddaba gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika Cabdirasaaq Hiirad iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Dayib Cali Maxamed iyadoo uu ku weheliyo qoraaga caanka ee Saciid Cali Shire ayaa dhammaan waxa ay ka mahad celiyeen sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen jaaliyadda Soomaalida Finland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa mahad iska leh gudigiisa oo qaban qaabiyay kulankan inaanu ku kulanno dadkii walaalaheena runtii aad inoo soo dhaweeyay iyo reer Finland guud ahaan jazakumullahu khayran soo dhaweyntaasi aniga iyo labada walaalahay ah oo Dayib Cali Maxamed iyo Saciid Cali Shire waxaanu ka nimid wadankii waxaanu u nimid inaanu runtii dadka walaalahay ee dibadda jooga qurbaha gaar ahaan Scandinavian-ka waxaanu soo maray Denmark, Sweden iyo Finland oo aan hadda nimi dareen guud oo wadanka ka jira inaanu idin la wadaagno oo xaq u leedihiin inaad wax ka ogaataan annana ina saaran tahay dareenkaas guud ee wadanka ka jira inaanu idin soo gudbino أولاً نرتو عن ماذا علينا يا رير فنلان أنتي عم تشوفني waxaan kaloo runtii u mahadnaqayaa walaalaha dhaqan qaabiye kulankan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan Finland intaas kadib guud ahaan waxbarashadu waa sida la idin sheegay wadanka dadka oo dhan qof walba wuxuu soo jeestay ilmihiisa inuu wax baro sida halkan ay khasab u tahay aan lagu ogolayn ilmuhu markuu waxbarashada gaaro inaad guriga ku haysid oo social lagu soo dirayo haddii la waayo oo systemka laga waayo ilaa inaad meel ku sheegtid mooyaan cidna ka yeelin ayaa waxa way dadka wadanka joogaan runtii waxa culay saaran ilmahoodu inay waxbarasho kala suuxi waagu markuu bariyo marka soo kala hado waxaad arkaysaa dadkii oo dhan oo dareeraya oo waxbarasho u dareeraya galabtii sidoo kale habeenkiina dadku waan wax bartaa marka waxaad muddo waxbarasho in aad loogu soo jeestay dabcan raggan walaalaheena waa maamulkii aniga laftayga macallimadu waa ku cusbahay aniga professionkayga waa qoraaga waa dhakhtar wuxuu xal u raadiyaa mushkilooyinka mujtamacuna waa kala duwan yihiin ummad walba waxay leedahay mushkilo u gaar ah qoraagu wuxuu la nool yahay mushkilooyinka mujtamaca keligiis baa la qarwa la jahwareera cidna uma dirsan marar badan laakiin isaga dareenkiisu wuxuu ku kalifayaa inuu qadiyada rogrogo dhinacyo badan ka fiiriyo ikhwaani Soomaaliya dadku amal baa jira waxaan la kulmay shantii sano u dambeysay Soomaaliya aad baan u tagay waxaana aad ula shaqeynay jaamacado kala duwan oo Soomaaliya waxaan markii hore isku dayay inaan gacan ka geysto way in qof arday kasta oo jaamacad ka baxa meeshuu markuu jaamacadda ka baxa uu dhihi lahaa waxaan aadayaa Yurub saxaraas aan ka gudbay intooda badan oo ku dhimanayaan ama uu dhaho wadankan shaqo mala gurigaan seexanaya in la baro mentality ayna shaqaysan karaan ganacsi abuuran karaan yani dhowr bilood ka hor hargeysa seminar aan ku bixinay gabdho jaamacad ka baxay $500 isku darsaday maanta 17 qof u shaqeeyaan iibkooduna sanadkii u dambeeyay waa $100,000 gabdhahaas intooda badan shaqana ma heleen haday dhahan saxaraasna ka gudbaynaana ilaah baa oganay nolol ku soo gaari lahayn meelahan iyo in kale fadhiya ayaa jira kulligan culimo ayaynu wadanahay ilaahay quraankiisa muxuu ku leeyahay la khayra fi kathir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas fadhi la isu yimaaday ma jiro oo khayr ku jira ilaa saddexda fadhi mooye waxaan rajaynayaa fadhigaani galabta inuu saddexdiiba uu koobay waa markii ugu horeysay oo ay soo gaaraan madax ka socota jaamacadda bariga Afrika dalkan Finland iyadoo si fiican uga amaan sheeganayaan soo dhaweynta ay u sameeyeen jaaliyadda Finland waxaana madaxdu ay ka warbixiyeen iyagoo ay sheegeen inay soo saarayaan dad Soomaaliyeed oo aqoon leh si baahidaasi ay u yaraato waxaana ay sheegeen in haatan ay ku guuleysteen in dad badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ee ka howlgala goobaha shaqooyinka ay soo saareen dhammaan jaamacadaha kala duwan ee dalka Soomaaliya Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Helsinki Finland